Ninkani waa Ibrahim Traore, 37 jirka Afgembi kula wareegay talada dalka Burkina Faso 2 sano ka hor. Ninkan ayaa muddo yar gudahood astaan u noqday rajo cusub oo ka ifaysa qaaradda Afrika, da'yar hoggaan u ah la dagaalanka gumaysiga cusub, isla markaana bedelay habfikirkii laga lahaa awoodda hoggaaminta ee qaaraddan saboolnimada iyo dagaaladu daashadeen. 2 sano gudahood wuxuu ka hirgeliyey dalkiisa 3 warshadood oo sabab u noqday in dalagyo ay ka soo dhoofsan jireen dalka dibaddiisa ay ka maarmaan. Sidaasi si la mid ah wuxuu hirgeliyey warshado sifeeya dahabka, waana warshado ay si rasmi ah u leeyihiin reer Burkina Faso, halka markii hore uu dahabku u afduubnaan jiray shirkado Faransiis ah. Wuxuuna heshiis la galay Ruushka si ay uga caawiyaan in tamarta ama korontada uu ka dhaliyo nukliyeerka, tallaabo ka dhigi doonta dalkan mid korontadiisu 90% ay ka qiimo jaban tahay dalalka deriskiisa ah. Dad badan ayaa u arka ninkan badbaadiyihii ka saari lahaa dalkan musuqmaasuqa, argagixisada iyo ku tiirsanaanta dibadaha, halka mucaaradkiisu ay ku tilmaamaan diktaatoor la mid ah kuwii ka horeeyey. Muuqaalkeena maanta ayaan uga hadli doonaa Ibrahim Traore iyo isbeddelkii uu sameeyey muddadii koobnayd ee uu xilka hayay. Si ka duwan hogaamiyeyaasha militari ee soo maray Afrika iyo Burkina Faso, Ibrahim Traore wuxuu ka soo jeedaa qoys rayid ah oo aan shaqo ku lahayn ciidanka. Wuxuu ku dhashay gobolka Bondokoy ee dhaca degmada Mohon. Tan iyo muddadaas wuxuu ahaa ardayga ugu dadaalka badan fasalkiisa. Sanadkii 2007 ayuu ka qalin jebiyey dugsiga sare, asagoo noqday mid ka mid ah ardaydii ugu buundooyinka sareeyey iskuulkiisa. Kadib wuxuu galay jaamacad la yiraahdo Joseph Kayserbo ee dhacda caasimadda Burkina Faso, isagoo bartay cilmiga geologiga, wuxuuna noqday qalinjebintiisii ardayga ugu sareeya kulliyaddiisa. Kadib nolosha Ibrahim Traore ayaa qaaday jiho filanwaa ah, wuxuuna go'aansaday inuu ku biiro ciidanka halkii uu horay u sii wadan lahaa waxbarashadiisa, shaqo kalena raadsan lahaa. 2010 ayuu Ibrahim Traore ku biiray ciidanka. 2012 ayuuna ka qalin jebiyey kulliyaddan. Kadib wuxuu ku biiray cutubyada madaafiicda ee deegaanka Kaya, isagoo ka gaaray darajada 2 xidigle. Kadibna 2020 ayuu gaaray darajada kabtan, wuxuuna tababar gaar ah ku qaatay dalka Morocco. Halkaas ayuuna ku dhammaystay tababaro la xiriira madaafiicda, wuxuuna ka qayb qaatay howlgallo militari oo aad u waaweyn, gaar ahaan howlgalladii xilligaas ka socday xadka 3 geesoodka ah ee Burkina Faso ay la leedahay Mali iyo Niger, oo uu kula dagaalamayay kooxo argagixiso ah oo ka dagaalama dalkan. Kaalintiisa ayaa si gaar ah u soo ifbaxday intii lagu guda jiray howlgalkii loo yaqaanay Otoboano ee sanadkii 2019 ka dhacay bariga dalkaas. Halkaas ayuuna ka helay sumcad ah inuu yahay sargaal geesi ah iyo hogaamiye dhiirigeliyey ciidankii oo hoggaanka u ahaa. Traore ayaa markii uu arkay musuqmaasuqa ka jira ciidamada sare iyo lunsashada miisaaniyadda difaaca, ayaa wuxuu go'aansaday in la joogo waqtigii wax laga bedeli lahaa xaaladda dalka. Sanadkii 2022 wuxuu hogaamiyey afgembi ka dhan ah xukuumaddii dalka ka jirtay, wuuna ku guulaystay. Malaayiin qof oo shacabka Burkina Faso ah ayaa u arka geesigii u rumayn lahaa riyadooda. Halkaas ayaan ku soo afmeeri doonaa muuqaalkeena maanta. Waxaa inoo ballan ah muuqaalka xiga. Sidaas iyo nabadgelyo.